Sahal Muuse Sahal waa wiil 6 jir ah waxa uu ku nool yahay magaalo madaxda gobolka Togdheer Burco waxa uu la ildaran yahay beer xanuun dalkana waxba waa lagaga qaban kari waayay hooyo Aniisa Cismaan waa hooyada dhashay wiilkan yar waxa ay noo sheegtay inay 2 carruur hore ay ka geeriyoodeen sababna looga soo dhigay beer xanuunka hayo wiilkeedan hadaba hooyo Aniisa waxa ay walaalaheeda muxsiniinta ah ka codsanaysaa inay soo kaalmeeyaan wiilkeedan oo dalka waxba lagaga qaban kari waayay si ay dibadda ugu qaado dhaqtar الرحمن الرحيم walaalo caruurtaas maarta qadarta ilaa iskaga dhacday adigu 3 inan bay ahaayeen 3dii inan mid 6 jir buu ku dhintay midna imka 17 jir buu haayo imka 2 bilood buu sii mootan yahay midna waa kan hadeerto maxay haytay agteeda fadhiya 3da inan beerkooda baa leeyid ma shaqeynay uu fadhiya sidaas labo saas bay ku socdeen kii saddexaadna waa ka maxay haytay intii taalkayaga ana wixii aanu meel marmari kareena marmarinay hanti waxaan lahayn gurigii guri baan dalahayn hantidii gurigiina waan u iibinay labada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oobsada meena kii kala waa kan hadda waxa maxay haytay aan dhakhtar ku geyno oo hadda maxay haytay aan u haynaana ma jirto intii taalkayaga gurigii eerana waan u iibinay adigu Itoobiya aan geynay waxay yiraahdeen inamada beerkooda waa bedel sidaas ayay walaal maxay haytay xaalkoodu imka isagana xaalkiisa ku sugan yahay waxaan kugu iri mararka qaar kood saas dhiig ba horta iyo dabadaba ka soconaya mararka qaar kood oxygen ta ka go'ayso oo dhakhtarkan ku hayay dhowr bilood 8 bilood oo dhawaan dhakhtarka ku hayay oo oxygen taas aanu fadhiyay dhakhtarka iyo dhiigga lagu shubaayo hadeertana waa kaas dhinacaana ma shaqeynayo lugta iyo gacantaasi beerkaana waxay yiraahdeen waa bedelo in beerkaas maxay haytay ma shaqeynayo beerkiis saas bay nagu yiraahdeen dalka gudihiisa waxay yiraahdeen waxba lagama qaban karayo dabad mooyaane walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa meel kasta ay joogan inay dhibkaas isaga ay ka soo caawiyaan wixii awoodoodii ay taalkooda waayo wax dalka laga qaban karayna ma laha kuwii kalena waan ku rafaaday si aan dhakhtar gula jiray adigu labadaas hadda mid 2 bilood buu sii mootan yahay kii kalena xoogaa buu sii mootana hadda kan baa isaga markaa dhibkii imka haysta isaga oo ku dambeeya marka walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa wixii ay igu dhaamaan ay taalkooda in ay maxay tahay igu soo caawiyaan unugan yar oo muddo la ildarnaa xanuunka walaalahayga muslimiinta ah soo kaalmeeya wixii aad awoodaan ugu soo hagaajiya nambarada shaashada idinka muuqda Axmed Nuur Ciise Maxamed Samraawi televisionka SBS magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco